الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد marka hore waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigay dad muslimiin ah oo ilaahay u cibaadaysanaya subxaanahu wa tacaala oo dad badan baa jiro oo caalamkan ku nool oo aan la waafajinin inay ilaahay u hoggaansamaan subxaanahu wa tacaala oo diin la-aan iyo gaalnimo ku sugan ilaahay baynu ka magan gallay waxa labaadoo ilaahay inugu mahadnaqaynaa dadka shahaadanayana inuu inaga dhigay kuwa isaga amarkiisa qaatay ee soomaya ee salaadaya allah inaga aqbalo intaa kadib kelmaddaydan koobani waxa ay ku saabsan tahay uun dumarka iyo doorka ay ku leeyihiin nolosha ama kaalinta ay buuxinayaan sidaynu wada ogsoonnahay ilaahay markii uu abuuray nebiyullaahi aadam calayhi salaam kuma daynin keligii oo haddii adduunyadu ay keligeed raggu wadayaan nebi aadam baa lagu dayn lahaa laakiin ilaahay wa khalaqa minha zawjaha lamaanihii buu ka abuuray nebi aadam laftiisaa lamaanihiisii laga abuuray oo xaawo ah taasi waxay sheegaysaa baahida ay u qabaan ragga iyo dumarku xagga iskaashiga noloshan adduunyada iyo doorka ay qaadanayaan ee iskabaya taasi oo sunnadii nolosha ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramaya waxau hi annisaau shaqaa'iqu rijaal dumarku waa kuwa ragga laga jeexay ee kabaya ee berber taagan diinteenna xaniifka ah ee qiimaha badan markaynu u soo noqonnona mas-uuliyadda ilaahay uu saaray bani aadamka ragga iyo dumarka labadaba way saaran tahay markuu rabbi yidhi innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula insaankaa ilaahay uu sheegay waa aadamahoo dhan rag iyo dumarba marka ammaanada raggu keligii ma qaadina rag iyo dumarba ammaanadaasi way saaran tahay sidaasay dumarka saalixaadka ahayna had walay joogeenba dumarkii wanaagsanaana saasay u aaminsan yihiin oo doorkooda mar walba ay u qaadanayeen qiimaha badnaa ee shariifka ah ee ilaahay u waafajiyey markaa qur-aankeenna kariimka ah wuxuu soo qaataa tusaalayaal badan oo ku saabsan dumarkaa qiimaha badnaa ee doorkooda qaatay ee mudan in lagu daydo maryamo bintu cimraan qisadeeda ayaa suuratu aali cimraan ilaahay uu kaga warramay subxaanahu wa tacaala siday u cibaadaysanaysay iyo dadaalkeedii iyo suuratu maryam sidoo kale waxaa qur-aanku uu tusaale ka dhigay ummu muusa calayhi salaam oo iyada iyo maryam labadaba inuu ilaahay u waxyooday uu tilmaamay dumar loo waxyoonay ahaayeen oo waxyi ilaahay helaya inkastoo waxyigaasi aanu ahayn kii ay rasuulladii iyo nebiyada ku noqonayeen laakiin tusaale qurux badan oo ku dayasho mudan oo dumarka ugu sugan bay ahaayeen waa ummahaatun khaalidaatu fi lqur'aan hooyooyin iyo hablo waaraya oo taariikhdooda ay qur-aanka ku waarayso weeye tusaale qur-aanku wuxuu ka dhigay siday badbaadada bani aadamka uga qeyb qaadanayeen sidoo kale ukhtu muusa nebiyullaahi muusa calayhi salaam walaashii waxaa kaloo qur-aanku uu ka warramay hablihii ilmo shucayb ee waalidka adeegiisa iyo camalka suubane hufan ee ay ehelkooda iyo waalidkooda ku saacidayaan ayay iyaguna tusaale ku ahaayeen marka intaasoo dham waxay noo tahay sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam dee saxaabiyaadkii baa inoogu filan oo islaamkan aynu ku abtirsanayna ilaahayna waafajiyey dee qofkii ugu horreeyey nebi maxamed labeeyey ee la hinjiye hareeraha la qabtay waxay ahaayeen hooyadii mu'miniinta hooyooyinkii mu'miniinta tii horreysay khadiija bintu khuweyli aftixii islaamka iyadaa qaadatay ammaan weynna ku lahayd waxaynu garanaynaa doorka ay qaadatay dejintii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo lahaa dahiruunii dahiruunii wazamiluunii zamiluunii iddada isagoo le iddadoo cabsanaya nebigu maqaalo dheer bay ku dejisay rasuulka oo qurux badnayd
oo ay u sheegaysay inaanu ilaahay hoojinayn walan yukhziika allaahu abadan ilaahay ku hoojin maayo kaasaad samaysaa qofka dhaqankiisu sidaa u wanaagsan yahay nasiib darra ku dhici mayso waraa'a kulli rajulin cadiimin imra'a nin kastoo weynba markaa ruux dumara ayaa barbar taagan taasi tusaale weyn bay ahayd khadiija bintu khuwaylid hooyooyinkii mu'miniinta tii horreysay allah ka raali noqdo sidaasaa nolosha ay u sii wadeenoo ay markaa ahaayeen kuwa asxaabtu markay soo islaamayeen iyo markay dacwadda faafinayeen dumarkuna kaalintooday lahaayeen oo waxaynu garanaynaa aalu yaasir qoyskii reer yaasir dee waxaa ka mid ahaa sumaya oo camaar ibnu yaasir hooyadii ahayd oo iyaduna shahiidkii ugu horreeyey islaamka qof islaamka u shahiida qofkii ugu horreeyay oo si aada u xun oo dhibaato badan oo naxdin lebuu cadowgu dilay iyadoo aan damqanine laakiin diinteeda ku adkayd ilaa intay la oofsanayay ilaahay subxaana wa tacaala adduunka kuwa kaxaynaya shahiidaysay sidaasoo kale waxaa ahayd caaisha oo aada u daayarayd laakiin caqligeedi iyo cilmigeedu aada u weynaa waynu ogsoonnahay asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam 7 ugu xadiid badan mid ka mida bay ahayd mawsuuca macnaa cilmiga ay u soo hoysay dadka muslimiinta u qabatay cilmi aada u cajiiba buu ahaa inankii habaryarta oo ahayd curwat bnu zubayr ayaa wuxuu lahaa habar yar lamaan yaabin ee dhaqanka sidaad u taqaana iyo gabayada iyo luqada carabigood dee waxaan idhaahdaa abubakar oo aftahan ahaaba aabba u ah laakiin waxaan la yaabay buuhi cilmiga caafimaadka isagana sidaad u taqaano xaggaad ka baratay oo waa tii markaa u sheegaysa siyaabahay ku baratay iyo dadkii wufuudda ahaayee nebi maxamed dawooyinka u sifeynaya iyo cilmiga dhakhtarnimada anigaa xokayn u ahaayoo sida had iyo jeer dawooyinka la ysugu darayo ee qofka xanuunsada loo daweynayo ayaa nebiga u samayn jiray bay lahayd oo halkaasaan cilmiga caafimaadka ka helay wuxuuna aynuga jeednaa waa arrin dheerune inaynu muujinno ragga iyo dumarku inay u siman yihiin tartanka ilaahay xaggiisa loogu jiro subxaana wa tacaala ilaa safarkan aynu ku jirno waa mid aynu ilaahay hortegi doonno innagoo oo weydiisanayna raali noqoshihiisa innagoo ka doonayna jannadiisa markaa tartankaa ilaahay uhi wa fii daalika falyatanaafasi ilmutanaafisuun dadka tartamaya tartanka ha ku jiraan limidli haada falyacmal ilcaamiluun jannadaa qiimaha badan dadka camal falaya ha u camal falaan tartankaasaa rag iyo dumar lagu jiraa macnaheedu maaha geedka lab la yidhaahdaa inuu mar walba ka fadli badan yahay dumarka inuu ka fadli badan yahay maaha tartankaa hadday dumarku kaga dheereeyaan ragga iyagaa ka fadli badan oo ka horeeya markaa hablaheenna iyo hooyooyinkeenna iyo ubadkeenna iyo ooryaheennuna taasay og yihiin oo insha allahu tacaalaa ay doorkooda qaadan doonaan markaynu dhaqankeenna u soo noqonnona kaalin buuxis bay ahaayeen hablaheenna iyo hooyooyinkeenoo dee dhaqankeennu miyiibu asalkiisu ahaaye waxaynu garanaynaa hawsha u adag iyagaa qaban jiray oo maaragtay haddii ay tahay aqal la dhisay iyo aqalkoo la sameeye iyo ubadkii iyo karintii iyo korintii wixii o dhan iyagaa isku daray raggu geedsarawaab buu ahaa haani gunbay ka tolantaabay odhan jireen hooyooyinku iyo guntay ka tolmaysay gunta reerku waa hooyada markii magaalada la soo galayna rag badan baa dayacaad sameeyeyoo duruuftii reerku hooyooyinkii hablaha ay ku soo muruxsatay intaasoo agoomood bay hayaan intaasoo aqoon-yahan bay soo saareen markii debadda la tegay iyo jaaliyadda debaddana waxaynu runtii garanaynaa hablaha iyo hooyooyinka soomaalidu kaalin aada u weyn bay qaateen oo aada iyo aada u qiimo badan oo iyadoo laga yaabo ragga qaarkood inay iskaga yimaadaan oo siyaasadda ay galaan ayaa haddana ubadkii ay ilaalinayaan si aanay u dhicin oo aanay u hallaabin oo juhaal aanay u noqonin markaa taasina waxa weeye mid ay maal gashanayaanuun dee ehelkooda iyo ubadkooday maal gashanayaan waana inay niyoodaan inay ilaahay ugu cibaadaysanayaan subxaana wa tacaala kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyati nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddoo dhan buu la hadlayoo wuxuu ihi dhammaantiin waxaad tihiin cid wax wada raacaysa madaxweynuhu waxbuu raacaya odayga reerku waxbuu raacaya hooyadu waxbay raacaysaa qof walibana waxa uu raacay maalinta qiyaamaha waa la weydiin doonaa marka arrin ijtimaaci ahoo bulsho oo keliya maahee waxaynu u aaminsannahay howlaha aynu ku jirnaa inay yihiin howlo diina haddaynu dacwadda u qabanayno iyo haddaynu dalka u qabanayno iyo haddii aynu ubadka iyo ehelka u qabanayno
inaad ilaahay ajri kaga doontaabaad niyoonaysa hawsha iyo tacabka aad ku jirto taasaana ilaahay subxaana wa tacaala uu ka abaalmarinayaa iyadoo dantaadii aad wato dadkaaga u shaqaynayso ayaad haddana ajri iyo abaal ku helaysaa marka caawa waxay noo martiya hablahan wanaagsan safiye iyo aamine iyo xamda oo matelaya hablaha macmiilka khayrka ah ee caalamka kala jooga ee soomaalida ah marka waxaynu leenahay soo dhowaada idinkoo runtii wixii su-aal a qabtaanna ina weydiin doono walaalihiina kale ee hablaha kalena aynu jecel lahay qaaliga ah soomaalidana matelaya waan idin ducaynaynaa waan idin soo dhowaynaynaa wixii marka alla naga fahamsiiyana way idinka jawaabi doonaa su-aalaha maaragtay a qabtaana soo gudbin doontaan waxaana qaadanaysaan doorkii ay saxaabiyaadku qaadanayeen markay nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam ee lahaayeen waxaanu doonaynaa maalin inaad noo samayso aad dee raggii unbaad inta badan ku kooban tahay annagana inaad maalinna siiso si aanu wixii aanu doonaynana kuu weydiinno iyo wixii aanu tabayno isla markaana rasuulka iyaga dhinaca iyaga aanu u qabsanno dee ragguna mar walba aanu naga xigina kaalintayada aanu qaadano muxaadaro markaa nebigu u jeedinaya sala allahu calayhi wasalam taasun baynu nebiga kaga dayanaynaa marka allaha idin xafido dhammaanteenna allah ina soo ururiyo kelmadaydaa hore intaasaan kusoo koobi lahaa wixii aa qabtaana markaa su-aalaana inta wakhtigu inoo saamaxo weydin soo gudbin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan sheekha iyo daadihiyaasha barnaamijka baan salaamaya aad iyo aad baad sheekh u mahadsantay baan leenahay kelmadda qiimaha badaneed noo jeedisay ka hadlaysa qiimaha ay dumarku ama dowrka ay dumarku ku lahaan islaamka dhexdiisa hore iyo imaka labadaba dhammaantiin aad iyo aad bay u mahadsantihiin waxaan idinku leeyahay jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh su-aasheeda koowaad haddaan bilaabo waxay leedahay waxaad ka warantaa gabadh ninkeedu uu dhintay kadibna ciddo tirsanaysay ciddo tirsiga waxay gabadhaas ku ciddo tirsanaysay bilahan shamsiga loo yaqaano ama bilahan miilaadiga halkay kaga ciddo tirsan lahayd bilahan qamariga ama dayaxa kadib gabadhaa markay ciddadeedu dhammaatay ayaa waxay u sheegeen dadkii inaan lagu ciddo tirsanin bilahan shamsiga ee lagu ciddo tirsado bilaha qamariga markaa gabadhaasi muddadii labada fatradii ama muddadii udhexaysay labada bilahaas qamariga ee kuwa shamsiga maxay samaynaysaa ma waxay muddada may dib ay usoo celinaysaa mise wax kale lagu buuxinaya fadiilat sheekh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخ وين mahadnaqaynaa iyo daadihiyaasha barnaamijkaba sheekh su-aashayda koowaad ee qabaa waxay tahay waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ku mashquulsan haasaawaha muddo badan iyo sanado fara badanna ku bixiya iyagoo qasdi guur aan ka lahayn amba ujeedadu aanay ahayn inay isguursadaan markaa sheekh maxaad ugu nasaaxaynaysaa dhalinyarada بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay kadib sheekha mawduucaadka qaaliga noo soo jeediyey anigana su-aashayda koobaad waxay noqonaysaa gabadha sideedii sakada uga bixinaysaa meherkeeda haddii uu gaadhay xadkii ama qadarkii iyo nisaabkii sakada ay kaga baxaysay laakiin aan weli siinin zawjeeda ama ninkeeda aan weli siinin uu gacantiisa ku jiro waaya waa mahadsantihiin allah idin barakeeyo waa su-aalo runtii ka turjumaya aqoon iyo cilmi iyo baahi jirta ta u horeysa weeyaane su-aasha safiya ee la xidhiidhay ruuxii dumarka ahayd ee laga geeriyooday ee odaygeedii allaha u naxariistay oo uu ka geeriyooday geeridu waa lamaahuraan iyo inay ku ciddo tirsatay bilihii miilaadiga halkii la doonayo inay ku ciddo tirsato bilahan dayaxa ama qamariga ama hijriga waxaanaynu ogsoonnahay inay siyaado wataan bilaha miilaadiga ahay oo dee sanadkii 11 bilood ugu dhowaan ayay isdheer yihiin marka waxaa halkaa inooga soo baxday inaan ciddadii 4 bilood iyo 10 ahayd waxba ka dhinnayn mar hadday ku ciddo tirsatay 4 bilood iyo 10 kuwan miilaadiga ah laakiin ay siyaado la socoto marka siyaadadaa dhowrka habeenihii waxba yeeli mayso mar haddii ay jahli uga dhacday oo iyadu dadaalaysay ciddadeediina kol haddii 4 bilood iyo 10kii ay dhammaysatay qamariga ahaa ama hijriga ahaa way u dhan tahay
kol haddaanay u kasinna wax bidco ah oo ay ku dhacday oo ay ku dambaabaysaa ma jiro. waxay u aaminsanayduun aqoon darrun bay ka ahayd, marka ciddadeeda way u dhammaatay, waanay xalaalowday. haddii alla u qadarana cid kale way guursan kartaa. su-aashaas hore jawaabteedu waa caynkaa. su-aashan labaad ee sheegaysa da-yartaa ku sheekaysanaya ama baraha bulshada ama qalabkan isgaadhsiinta ah ee casriga ah ee soo kordhay, haddii ay guur u jeedaan oo guur xalaala labada qof ay kala doonayaan, waa loo ogol yahay inay sarkaan iyo inay wada hadlaan. labadaba sharcigu wuu u saamaxayaa, oo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam taa tusaalu inoogu ahaa, dadkana wuu u fasaxay. laakiin midhka meesha ku jiraa waxa weeyaan wax waliba xad buu leeyahay. is-araggaa iyo wada hadalkaas waa inuu xad yeeshaa. labada qof intay isku qancayaan xagga guur ahaan ayay sarki karaan, iyo hadalka inta ay ka boganayaan danahooda la xidhiidha guurka, hadday tahay wakhtiga, haddii ay tahay sidii hawsha u abaabuli lahayn, haddii ay tahay meherku wuxuu noqon lahaa, arrimaha intay ka wada hadlayaan. intaasoo dee lagama maarmaan ahoo dhismihii qoyska la xidhiidha. laakiin arrinta waxaa intaa sii dhaafsan ee aynu ogsoonnahay siday u socoto ee daayar badani ay u wadaan, oo markaa ay uga niyeysan yihiin qaarkood allaha hanuuniye inuu wixii noqdo waxay ama ku raaxaystaan amaba fitno keeni karaba, inay sina iyo xaaraan ku dhacaan. ila dadkii markay isbartaan, isku gooni noqdaan, isdhexgalaan, hadallo kala kaankaana ay wadaan, shaydaanku wuu dhex gelayaa, wuu ka faa'iidaysanayaa. marka ceeb iyo xumaan bay uga dhacayaan. taasi waa xagga sharcigeenna waa xaaraan. waa xaaraan inuu qofku ilaahay uga toobad keenana weeye. waxay sababi kartaa nicmooyinku ilaahay siiyey ee maqalka iyo aragga iyo fahamka inay xaaraantaasi ka tagsiisaabaa suuragala. ilaa nicmooyin baa ilaahay uu ku siiyo, nicmooyinka haddaad khayr u isticmaali weydo ilaahay wuu kaa masixi karaa. marka waxaynu leenahay yuu shaydaanku idinka faa'iidaysanine waxaa waa lagu fitnoobaya ka daaya, oo dhinaca fiican u isticmaala, dhinaca xaaraantaana joojiya. sharci ahaanna ma bannaana. su-aasha saddexaad ee aamina waxay iyadu la xidhiidhay xagga meherka. haddii ruuxii dumarka ahayd saygeeda ay meher ku leedahay, ase aanu siinin sakadii ma ku waajibaysa? haa, way ku waajibaysa. hadduu xoolo hayo oo uu siin karo iyadii, oo iyadu ay ku daysato oo aanay ka qaadanin, dee waa wax akownka iyo baanka u yaalloo kale. waxay la mid tahay lacagtan akownka ku jirta. ninkaagii xoolihii wuu hayaa, wuu kari karayaa, waanu ku siin karayaa. adigaa laakiin ku daystay oo ku dhaafay. lacagtan akoonka taallana sanad walba waa lagu yeelanayaa sakadii, sanadka labaad baa lagu yeelanaya, 10 sana lagu yeelanaya. adiga iyo masaakiintu waxay isugu imanaysaan xisaabi xil ma leh. haddii xoolahan sakagal ay yihiin oo saka ay gaadheen halkay ku sakoobayeen $3,000 iyo wixii ka badan, sanad walba waa lagu leeyahay sakadii. marka waxaynu leenahay hooyooyinkii iyo hablaha ka faa'iidaysta meherkiinoo mar haddii raggu idiin helaya intoo ka qaadataan ku shaqaysta oo ka faa'iidaysta oo sadaqada ka bixiya oo sakadu iyo idinka marin. saddexdii su-aalood waxaan filayaa jawaabooda markaynu soo koobno inahaasay noqonayaan. wallahu aclam. فضيلة الشيخ جزاك الله خير الجزاء. aad baad ugu mahadsantahay si wanaagsan aad noogu faahfaahisay su'aalaha. su-aasheeda labaad waxay leedahay, sheekh waxaad ka warantaa waxaa jira dumar dahabka oo kale amaah ku sameeya, dumarka amaahiya waxay ku sameeyaan weliba qaab taqsiid oo qayb bay u bixiyaan. tusaale ahaan gabadh baa u imanaysa, gabadh dahabka iibiso, waxay ku oranaysaa dahabka iga iibiyo, way la heshiinaysaa, qiimihii wixii o dhan way ka heshiinayaan. haddii xitaa wax ka dayn karta way ka daynaysaa. marka dambe waxay ku oranaysaa lacag ma hayo, laakiin waxaan isku dayayaa maalin kasta waxaan heli karo inaan ku siiyo. markaan lacagtaa kuu soo dhammaystirana dahabka aad ugu wareejiso, heshiiska saasay ku gelayaan, saasay ku dhammaanaysaa. marka arrintaa balka waran, dahabkan ribaa soo gelaysa mise ma soo geliso? السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. فضيلة الشيخ سؤاشيدا labaad waxay noqonaysaa gabadha ma bixi kartaa maxram la'aan, ma safri kartaa iyadoo waxay u safraysaana ay tahay ganacsi inay waddan kale u doonato, amba caafimaad ay doonato, amba cilmi ay u baxdo, yani iyadan maxram la soconin gabadhu ma safri kartaa? sheekh anigana su-aashayda labaad waxay noqonaysaa dawadii dumarku isticmaalaan si caruurta kale korin ugu sameeyaan ama wakhtiga ugu kala fogeeyaan
waxay khalkhal ku keentaa caadadii dumarka khalkhal ku keentaa waqtigeedii bay dheeraysaa ama googoynis mararka qaarkood in bishoo dhan ku firidha laga yaabo maxay ka yeelaysaa gabadhaasi cibaadadeedii soontii iyo salaadii iyo xilli xidhiidhe jazaakum allahu khayran su-aasha hore inantaa safiya haddii aan isku dayo ina ka jawaabo dahabka marka la iibsanayo ee lacag lagu iibsanayo amaah ma galo aan soo qadine waayo naqdayn baa la isku idhaahdaayo waa waxaa laga maarmaana marka la kala sarifto in la kala qaato in la kala iibsado haddii sidan aad sheegtay ruuxa dumarka ahi ay ku urursato gabadhii dahabka haysay lacag ama qofkii dahabka iibinayay ayay lacag ku urursato kolba qayb bay u dhiibtay bilba wax markay lacagtii badatay ay gaadho heeray dahabkay doonaysa ku iibsato ayay qofkii dahabka hayay tiri haddaba imika iga iibi taas waa sax oo dee lacag bay ku biirsanaysa qofkana weli waxba kaba iibsan lacagteedii markay u dhammaystirantay ayay dahabkeedii iibsatay waa sidii la doonaya sidaas tala diidaya laakiin waa sidaa cagsigeed inay dahabkii sii qaadato dahabkan misaad iga siinaysaa intaasoo kun baan kaa siinayaa waaye ee amaahe sidii ay ku qaadatay lacagtii bay kolba qayb u keenaysa tala diidayaa waa taas oo waxaa la doonayaa yadan biyadin wahaaan wahaa siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hooyo keen marka lacagtiioo halkan taalla iyo dahabkii waa in la isdhaafsado saasuu sax ku noqonaya haddii kale ribad yad ribada la yidhahdee gacanta ayay noqonaysaa nebiguna axaadiid badan buu kaga digay sala allahu calayhi wasalam waana waxyaabaha had iyo jeer saynu aragnay markan inflationka iyo sicir bararka uu jiro muranka keena ee dadku isku qabsado oo sicirkii horunbaa isbedelaya labadii qof unbuu midid damacgelaya waa la isqabsanaya islaamkuna taasuu diidaya su-aasha inantaa handaa ahayd maxaan idhaahdaa safarka iyo ruuxa dumarka ah culimada islaamku waxay isla waafaqsan yihiin sida axaadiida nebiguba sheegaysa sala allahu calayhi wasalam asalku inuu yahay ruuxa dumar markay safraysa inay u baahantahay maxram ama saygeedu inuu raaco ama qof ehelkeeda ah inuu la socdo asalku waa caynkaa axaadiidii nebigaa sheegaysa sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii ibnu cabaas ee bukhaari ku sugnaa gabadhu yay safrin ilaa wamacahaa duu maxram iyadoo qof gacalkeedii ula socdo mooyaane yay gabadhu safrin riwaayo kalena waxay tilmaamaysay habeen iyo maalin masaafad la socdo yay safrin iyadoo mid ehelkeedahay ula socdo mooyaane diidmadaasuu nebigu saaray sala allahu calayhi wasalam ma aha macnaheedu in laga shakisan yahay ruuxa dumarka ah laakiin waa karaamadeeda iyo sharafteeda la dhowrayo oo geedka rag la ydhaa dad badan baa iska saqajaana iyadoo xataa casriganba la joogo ayaa damacoodu iska badan yahay oo garoommadaa markaad arkayso dumar ku cadilan aad arkaysaa keligeed marka la arko la qabsanayo maqsin lagu xaraynayo la odhanayo waa lagu baadhaya markaa dhib badan baa ka soo gaadha markaa waxaa loo turayaa sharafteeda iyo qiimaha ay leedahay iyo karaamadeeda ay la xidhiidhaa in laga shakisan yahay maaha marka arintaas waa arrin guud oo culimmadu isla waafaqsanaya oo asalkii marka culimadu waxay leeyihin haddii gabadhi maxram weydo maxay yeelaysaa ay u baahan tahay inay ama soo tijaaraysato ama cibaadadii soo gudato xajka marka way jiraan qolo u qiileego oo yidhaahdo haddii fitno laga aamin yahay oo meeshaas nabadgelya ay jirto oo maala rag aaminiina ay raacayso ama dumar kooxahoo ay maaragtay la socoto ay raacayso dhib ma laha oo safarkaa waa geli kartaa ayay yidhaahdaan axaadiidna waa usoo qaadanayaan iyo asxaabta aahaartoodii ama dhaqamadoodii qaar ka mida oo cumar bnu khadaab wakhtigii uu madaxda ahaa markii ay dooneen inay xajaan xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu raaciyey cabduraxmaan ibnu cawf iyo cuhmaan ibnu cafaan oo xajayey buu yihi idinku sii kaxeeya hooyooyinkan muslimaadka ah ama xaasaskii nebiga sii kaxeeya sibay kusoo xajeen xadiidu daciinana wuu jiraa oo uu nebigu lahaa wakhtiga dambe islaamku u ballaaran doonaa amni baa iman doonaa ilaa ay gabadhu ciraaq iyo xiro intay ka soo safarto kacbada dawaafto iyadoon cidinla soconin kaana way daliishadaan inkastuu si dadban uu u tusinayo oonu ku caddayn almuhim masale la isku khilaafsan yahay weeye marka haddii baahi adagi timaado gabadhii maxramna ay weydo fitnana laga aamin yahay ciday weheshatana hayso way safri kartaa baynu qaadan karnaa insha allah haddii duruufi timid arrinta kale la xidhiidha dawooyinkan la qaadanayo ee dhasha kala fogeynaya iyo inay khalkhal ku keenayso ruuxii dumarka dawadaas ama
dee intuu dhiig ka yimaado cibaadadii khalkhal kaga imanayo waa laba siyoodoo midi waxa weye ma isticmaali kartaa midina waxa weye haddii khalkhalkaasi ku yimid see u cibaadaysanaysa marka hore dawooyinkan kolka la isticmaalayo waa inuu qofkan iyo dhakhtarkeeduba tijaabiyaan inay naasibaysiyo in kale oo waxani dee dhibaato aanu ku keenayn qofka marka dhasha lagu kala fogeynayo haddii kaloo dhibaata ay imanayso qofka caafimaadkiisi ay ku imanayso waxan aanu waafaqayn waa inay iska dayso addararu yuzaal laa darara walaa diraar rasuulkaa wuxuu ina leeyay sala allahu calayh wasalam dhibaatada waxa la yidhaahdo maya qofku yuu naftiisa dhibin yaan isagana la dhibin marka dhibaatadaa daraaddeed way iska daynaysa si kalunbay isticmaali doontaayoo ama wixii naasibe ee waafaqa ayay isticmaali doontaa taasi waa ta xukunka isticmaalka dawooyinka ah tan kale la xidhiidha xagga dahaaradeeda qofku intii ay wakhtigii caadadu ay ka iman jirtay ayay ku xisaabinaysaa inay caado tahay intan kale dhiiggu uu ka soconayana dhabar furan bay u tixgelinaysaa waana iska cibaadaysanaysaa salaad walbana way u weysaysanaysaa salaad walba u nadaafad qaadanaysaa wixii dhiigga ka hagaajin lahaana way xidhanaysaa salaad walbana way tukanaysaa way iska soomaysaa dhiiggaa ay ka khalkhalka ah dawadu ay ku keentayna dhabar furan buu noqonayaa laakiin ayaamihii ay caadadu ka iman jirtuunbay ku xisaabtamaysaa inay caado leedahay cibaadadiina joojinaysa markaa iyadaa kolley dib ugu noqonaysa xaaladeedii hore iyo wakhtigii ay markaa caadada yeelan jirtay saasay u kala saari doontaa insha allah markaa saddexdaa su-aalooda dambe jawaabahooduna waa caynka ah inta aynu ka fahmnay wallahu aclam fadiilat sheekh aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aasheeda saddexaad waxay leedahay waxaad ka warantaa sheekh dad waxaa jira meheradaha dhigta biilal maalan lacag doolar ay meherad dhiganayaan marka waxay sameynayaan maalin kasta biil bay ka qaataan kolba intay u baahan yihiin bisha saasay ku dhammaystaan wax sarifa iyo wax qabdi iyo waxaasna may dhicin lacagtii unbay u dhiibteen kadibna waa la siiyaa maalinba intay uga baahan yihiin bal arrintaa ka waran sheekh bismillah su-aasheeda saddexaad waxay noqonaysaa sheekh ma ansaxayaa caqdiga amba meherka gabadh weligeedu aanu tukanin uu taarigsalaad yahay bismillaah su-aasheeda saddexaad waxay noqonaysaa haddii ay gabadhu baratay cilmi ummaddeedu baa mujtamaceedu u baahan yahay ay tahayna gabadh mutasawwijadoo reer iyo caruur leh ma waxaa u khayr badan in ay gurigeeda iskaga koobnaato oo aanay u bixin cilmiga si dadka u bari lahayd mise waxaa u khayr badan sheekh inay cilmiga faa'iidayso oy baxdo haddii ay caruurteedii iyo gurigii aanay dayacmaynin baaraka allaahu fiikunna allah idin barakeeyo waa saddex su-aaloodoo muhiima runtii oo dee nolosheenna taabanaya su-aashan hore ee la xidhiidha biilasha oo runtii dee wax hooyooyinka iyo habluhuna ay isticmaalaana oo marna biilkii waa loo dhiibtaa dukaankiioo qofku wuu sii qadintaa marna waa laga sii amaahda labada siyoodba way jiraan markaa sicir barar ka yimid ee sixirkii aanu fadhiina uu kolba kackacayo ayaa waxay keenaan qofkii inay shilinna wax kaga iibiyaan dukaamadu doolarna ay u qoraan iyagoo ka baqaya shilinkaasi inuu qiimo dhaco marka meeshii waxaa ka soo baxay hal mushkilad baa ka soo baxday oo ah lacagtii wax lagu iibiyey iyo lacagtii la qoraa kala duwan waa tii aynu ka soo hadlaynay markii dhoweydoo sarif baa yimi aan lacagtii la kala qaadan talan 10 kun oo shilin baad ka qaadatay ama waxaad tiraa 100 kun oo shilin ayaad ka qaadatay oo biilkiiya wuxuu kuu qorayaa doolar buu kuu qorayaa intay doolar u dhigmaysay meeshii sarif baa yimi 100 kun adigu qaadatay laakiin doolarkii dee umaa dhiibina wuu kugu leeyahay oo haddaad amaahanayso weeye marka taasi sax maaha waa qalad labadii lacagayow ayay miday maqantay oo ay amaah taho tii doolarka aydaytay laakiin hadday sidaa cagsigee tahay oo adiga uu qofkani dukaanka aya doolar kuu hayo dee waxaad leedahay 100 kun isiiyo waxay doolar ka noqonaysana bedelo ka gooso marka wuxuu ku leeyahay intii aan kuu hayay intaa waan kuu sarifay oo sarifkoodii 100 kun buu noqday intay doolar ka noqonaysana waan kaa jaray baaqiga doolarkaagii ku hadhay waa intaa taasi waa sax oo adiguna lacag baad qaadatay shilina isaguna doolar buu qaatay uu ka goostay kii uu ku hayay saa sax bay ku tahay waa markuu lacag kuu sii hayo laakiin dhibku wuxuu jiraa marka adiga aanu lacag ku haynin uu kugu yeelanayo doolarka
marka waxa xalku noqonayaa shilinka uu ku amaahiyuun inuu kugu yeesho oo 100 kun buu ku amaahiyey 100 kaas buu kugu qorayaa wuxuu kugu leeyahay waa shilin ama ha u kaco ama ha u jabo si aanay ribadii xagga gacanta u imanin taa jawaabteedu waa caynkaa weeye marka waa lagu qaldamaaye dadka meheradaha haystana waa in la saxaa habluhuna ay ka feejignaadaan oo dee xalaal baynu doonaynaa su-aashan labaadee ah weligu haddii uu taariku salaad yahay ninkii mas-uulka inanta ee guurin lahaa maxaa la yeelayaa weliga inanta guurinayaa shuruuduu leeyahay shuruudaha waxaa ka mida inuu yahay qof caadila caadilna ma aha qof taariku salaadi oo haddii uu xaqii ilaahayba dayacay xaqa inantana inuu dayacaa laga yaabaa oo qofka arrinkii ilaahay ka soo dulbooday ka aadamahana hadhu jiidi maayo sidaa daraaddeed shuruudda loo xidhayo weliga inanta guurinaya waa inuu yahay mid caadila oo ilaahay u cibaadaysto xaqii ilaahay siiyey haddii laga waayo taa qofka ku xigaa guurinaya ee markaa isaga ku soo xiga xagga abtirsiim ahaan odayga haddii shardigan laga waayo inankaa guurinaya awowgii aabbaa guurinaya haddaanay kuwaas jooginna qaadiga maxkamadda degmadaa guurinaya marka waxaad halkaa ka arkaysaa nuqsaanta ay leedahay salaad la-aantu dee qof walkii oo ehelkiisiiba guurin kari waayo ama inantiisii oo halkaa joogoo layidhi waa lagaa dulbooday adiga diinxumadaada daraaddeed iyo daciifnimada kugu timi waa nasiib darro weyn marka qofka waa inuu xishoodaa ilaahay ka xishoodaa ummadda ka xishooda xaqiisa qaata way jiraan culimada qaarkood oo runtii le wilaayatulfaasiqu tasixu qofkan faasiqa wilaayadiisa ama weligiisa waxbuu meherin karaa laakiin qowlkaynu qaadanayna jumhuurtu waa kaa weeye su-aasha kale iyaduna inantaasi ay xustee ah ruuxii dumarka ahayd ee aqoonta lahayd aqalkana lahayd ee oorida ahayd ma aqalkii unbay iska joogaysaa oo ku eegaanaysaa mise aqoonteedii ummadda way gaadhsiinaysaa mee sida u qiimaha badane waxa weeye inay labada arrimoodba waa ammaano saarane labadaba kaalin buux isku noqoto labadaydaba waa inay labadaba iswaafajisaa iyadoo dabcan ay sii kala horeeyaan waajibaadkuyo waajibka ka saaran ubadkeeda iyo aqalkeeda iyo odaygeeda ayaa kow ah oo qofku marka uu intaa ehelkiisa ee agtiisa ah uu daryeelo ayuu dadka kalena wax ku tari karaa markuu intaa dayacana dee cid kalena waxba kuma tarayo kala duintiisii bay nagu soo daayay marka waxyaabaha muhiimkaa waxaa ka mida saygeeda inay kala tashato oo isla fahmaan hawshaydii ubadkii aqalkii kol haddaan daryeelay ama dadkii iga saacidayeyba ay dee hawshan ii qabanayaan adigiina wax kaa dayacanaya waxaan kugu dulmiyayaa toona aanu jirin maxaad ka qabtaa diinta ilaaha inaan kaalintayda ku darsado oo dadkii aan waxbaroon aqoontii u kordhiyo ehelkii iyo asxaabtii iyo ummaddiiba marka qofkii caqli leh wuu ku saacidaya waanu u fududaynayaa wadatashiga qoyskuna iyo in la israali geliyaana aad bay muhiim u tahay si qoysku aanu inooga dumin marka nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu ka warramayey ruuxa dumarii kolkay soomayso soo sunno ah wuxuu lahaa mar hadduu ninkeedu joogo idan iyo fasaxa ka qaadato dacwaddiina waa saasoo kaleoo iyadana fasaxaasay ka qaadan doontaa marka sidaasay dadkii wax ku bari dumarkii saalixaadka ahaa hadday yihiin asxaabtii iyo hadday yihiin salafkiiba saasay dacwadda ku faafin jireen oo raggooda ay jihaadka u raaci jireen dacwadda u raacayeen diinta ula faafinayeen ilaahayna markuu la hadlayey xaasaskii nebiga wuxuu uhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma waxaad dadka gaadhsiisaan oo gudbisaan aayadahan iyo axaadiidan guryihiinna lagu akhriyayo ee nebi maxamed lagu soo dejinaya sala allahu calayh wasalam sidaasay markaa nusuus badan iyo daliilo badan iyo axaadiid badani xaasaskii nebiga inaga soo gaadheen dumar badan baa markaa muxadisiintan aad garanaysa ee kutubaha inoo qoray shuyuukhdooda iyo culimmadoodu qaar baa dumar badani ay ka mid ahaayeen marka labada arrimoodba in la iswaafajiyo weeyaan sidaasay markaa cilmi maadiyah iyo mid diiniyaba wixii ay hablaheennu inoo hayaan saasaynu kaga faa'idaysanaynaa maadaama xil saaran uu yahay howluhuna sii kala horeeyaan markaa saasaa la isu waafajinayaa oo aan mid loo dayacaynin insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa wixii aynu isu sheegayno inuu ka dhiga mid xaqa oo sawaaba oo uu inaga dhiga min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah idinkuna runtii aad baa u mahadsantihiin su-aalo muhiimana waa soo bandhigteen
insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha aynu ka hadlaynana allah idin sakhira idinka iyo hablaha kaleba intaasaynu kusoo koobi doonaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu